mujaahid shiine xasan qube waxa uu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee sida nafhurnimada leh uga soo qayb qaatay halgankii dib u xoreynta jamhuuriyadda Somaliland isaga oo dagaaladaasi ku dhaawacmay tiraba 3 jeer kuna waayay lugtiisii midig isla markaasina ka tirsanaa guutooyinkii Sancaani iyo Koodbuur. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo daraa safar shaqo ku tagay gobolka Hawd ayay mujaahid shiine xasan qube si kadis ugu kulmeen magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd kaasi oo madaxweynaha ay si dareen gooni ah oo farxad iyo kalgacal saaxiibtinimo qoto dheer ka muuqato ay isku salaameen isla markaasina ay laabta isku geliyeen muuqaalka kulanka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mujaahid shiine xasan qube ayaa markii ay warbaahintu baahisay saameyn weyn yeeshay isla markaasina bulshada aad u soo jiitay. mujaahid shiine xasan qube oo aanu kula kulanay magaalada Balligubadle ayaa nooga waramay dagaaladii qadhaadha ee uu ka qayb galay intii lagu jiray dib u xoreyntii dalka iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee dhib iyo dheef lahaa ay isla soo mareen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waa mahadsantihiin aad iyo aad mar haddaan maanta Jaanis ka helay TV-gii koowaad ee wareystati baan idin baleenay waxaan si aaminsanahay Balidhiig ilaa min Hargeysa inuu wixii ka sii karo muhiima Balidhiig oo markii hore SNM ku guuleysatay 7 gaari inaanu gubno 3 ka haysano kaarihii ku jiro iyo isagoo buuxa rasaastii ife buuxa rasaastiisii PM42 oo 100 nin aan la siisteen aanu ku qabsanay iyo gaarigiisii oo buuxa 3 xeray haayeen 2 saac baan ku qabsanay 1 nin baan naga dhintay adigu 5 wayna ka dhaawacantay guul balaaran baan ku gaadhay aniga ina kaahin iyo oo tabiix caalin Allah u naxariistay anna ururkii technicada ee laanqeyrta laga diray ayaan markaa ina kaahidi me ninkii taliya in cali dheeran leeraa jooga hadda oo janana ayaa laga dhigay dagaalkii ugu guusha badnaa SNM inta ka maqnay dalku waa 1 kaawan ka qayb galay Hargeysa 3 bilood iyo 15 cishaan joog 3 jeer baan dhaawacay tan ku jirta bawdada oo ka horeysay go'oninka bilbooyaan kala taliyaha Sancaani maxamuud aybaana ii dhiibay intii aad geeriyood markii hore magaalada waxa loo qaybiyay aaga bariga galbeed annagu barigaan hoos tagin Muuse joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa la joogay madax badan oo joogta. mujaahid shiine xasan qube waxa uu sheegay inay madaxweynaha Somaliland isla soo mareen waqtiyo adag oo xasuustooda lahaa isla markaasina ay saaxiib gaar ah ahaayeen inay Balligubadle ku kulmaana ay farxad gaar ah wahayd. waxaan cadeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse inuu geesigii koowaad Hargeysa waxaan cadeynayaa maalintii koowaad ee wiisi noo yimi fooqeena buubaabu taliskayga ahaa aniga iyo Kaysal Ali Beegsigan jooga rag dhintay Ciise Qurcadahan jooga wuxuu wada 2 nin oo saraakiila oo faqastii oo soo dhiibay waxaan saraakiil baan inaad ciidan noo dhiibtaan doonaa ku qoslay ina keenay fooqeena buubaabu waa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse labadii nin waxay yiraahdeen inaan yaraa jabhadka ahaa aanu naqaanay shiine xasan qube ayaana ku saraakiila aad noo keentay oo aad leedahay ciidan haydiin dhiibo saantu ee ku qoslay ayuu isaga lahadka sarkaala ubax markasto oo weerarna lagu soo qaado ama wuxuu igala soo hadli jiray bahalkan dhowrka kiiloomitir ama isagoo ordaya ayuu iman jiray oo gaari wata madaxweynaha waxaan isla soo qaadanay waqti badan madaxweynaha dee inaanu ahayn saaxiib waxa cadeynaya 2017 markuu 2 bilood xilka hayay ayuu ii yaar madaxtooyada uu keenay
sidan si leeg baanu isugu dhegnay jacaylkii naga dhexeeyey saaxiibtinimo dadka qaarba waxba isku jeclaada geesinimadii halgankaan isku jeclaan isna uu ii qirayo anna waan u qiraya isna wuu ii qiraya way arkayeen muuqaalada caalamka madaxweynuhu inuu mujaahidiinta jecel yahay ku gartabana ustaa laabta u geliyo horta aniga farxad way yahay maruu soo baxayo baabuur iyo buuq bay daahay kadisu maan arka saadan soo dhaqaaqo midba gacan igu dhagay mar labaad dhaqbteen ayuu arkay gig uu iga furfura waydaan garanayn buu waanay ku garanayn buu anay uu ku celceliyey waydaan garanayn waanay ku garanayn buu igu raali celinay 10 mil ayaa qaw waxa kala furfura aniga waxa yahay wax tar weyn oo farxad leh mujaahid Shiine Xasan Qube sidoo kale waxa uu ka waramay dagaaladii kala duwanaa ee ay ka wada qayb galeen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale dhaawacyadii labadooduba ka soo gaadhay 3 bilood iyo 15 cashan ku jirtay Hargeysa Muuse hal yoom muu iga maqnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii ugu horeysay waxa uu ku dhaawacmay bacadlaha maalintii labaad wuxuu ku dhaawacmay nasal silimi hore iyo fooqayna faarax joome markii saddexaad wuxuu ku dhaawacmay bacadlaha sabada bacadlaha imise jeer bad dhaawacantay 3 jeer baan dhaawacmay waa ka bixitaankii oo tana lugta goday kay kugu goday waxa soo galeen afartii habeenimo geerashow cali waxaanu isu jiraa intan 24 mitir 25 geerashow cali soo galay waa kaarayaal waa infantry ayaa soo galay halka khasaare ballaaran baan ka gaarsiinay afartii man soo wareeyay barkii afartii iyo barkii galabnimo iyadoo sidii u socota afartii iyo barkii galabnimo ayay ugu dhacday waan dhaqaaqa laba talaabo markan qaadu daba keenay 7 dibaan u dhacay marka goobtaasay lugtu igu goday mujaahid Shiine Xasan Qube waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday inuu u diro dhakhtar dibadeed waxa aan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanay aan saaxiibka waxaan u baahnay inuu dhakhtar ii diro caafimaad guud ama Hindiya ha noqoto ama Turkiga ama Ethiopia aad baan ugu baahanahay